غزوة يرموك saddex nin oo asxaabtii nabiga maxamed ka mid ah ayaa dhaawac halisa lagu soo gaaray marka kii horeeyay la gaaray wuxuu leeyahay biyo igu qabta ikrimuha markii biyihii la yidhi hal lagu qabto hal la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kale oo ka shisheeyo leh biyo markaasuu anu waan roonahe isaga la gaaray biyaha kiiba lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anu waan roonahe ka kale la gaara saddexdoodii iyadoo ninnagu biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbidayu leey isaga la gaara ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anu han dhinto walaalkay han noolaado muslimiintuna maanta maxay marayaan anu han noolaado aadu iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya yaa waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu yidhi yashuddu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa joogee muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugoodo u duceeyo maxaa ducaynaynaa maanta tv-gaad furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugoodo ahayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiis ku yidhi haddaad ummadda wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayeyna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culammada inay isku xidhnaato dhallinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji مسكيتي النبي قال صلى الله عليه وسلم وخزرجي هلكا وحافظ الأنصار أوس خزرج مهاجرين حلقات وحدول تجي بلال يا سلمان يا عمار يا فديان مرقاسور كوا هديت ولا محل وقبها هاي يقول كوا نينكو تلكي بو هلاي معاذ بن جبل بانيكي هلكا قبتي ومحاتري وان كفتمنا هذا كان وان هداي مركاسو معاذ هلكا اسقو هيو نبيغا نينكي u geeyay sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulka wajigiisi bedilmay masaajidku soo galay mambarku fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeeray khudbadu nabigu bilaabay khudbad dheer ma hayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yiri wariyaada rabbigiinu waa mid kaliya buu yiri diintiinuna waa mid kaliya carabiyaduna aabay hooyeynima abu kaydi faman ta'allamaha nika luqada carabiyada ku hadalkayga bartay waa carabi inta markuu nabigu yiri buu khudbadii ka dhaadhacay mucaad bin jabal wali ninka halkii buu hayaa kana nabi allah maxaad oran buu ka yiri ka naarta u daaburi naarta kaaga filan naarta u daabu ka yiri maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmadda wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu yidhi kuwa maxaa looga baahan yahay haddeetoole waa bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb alruumi radia allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninku tolkii buu helay haddeetoole kelmadda uu yidhi baa ilaahay ninka raxmaddii kala noqday mar labaad oo diinta ilaahay u ka qaatay isagoo murtadana la soo dilay marka ikhwata aliimaani walislaam khayr baa inaga muuqda dad muslimiina oo luqa keliya ku hadlayaan nahay inaku ilaahay baa naga dhigay waa ilaahay waa noo nicmeeyey
wallaahi nicmadda ay soomaalidu haysato carabtay diintu luqadooda ku soo degta ma haysata maanta masaajidda iyo culummada iyo ardayda xafadatu kitaabillaahiya iyo maaragtaani madaarista iyo nashaadka dacawiga ee meel alliya meeshay soomaali ay degtoo dhan maanta ka socda carabtii qur'aanku luqadooda iyo dalkooda ugu soo degay wallahi inay nicmaddaa haysan maanta ayaan dhawayto annagoo madiinat almunawara joogna xashki imika maطcamaan ka cuntaynayna ayaan ku aragnay nin dhallinyaro sacuudi oo surwaal gaaban halkaa ku jooga sita jiwaar masjid nabowi agtiisa maطcam masaajidkii nebi maxamed aan ka dheerayn ayuu surwaal gaaban sita sheekh ismaaciil baa iga dhor bulxuseen oo eeg buu yidhi haan eegaa baan ka yidhi sheekh waa wax laga murugooday jabuuti oo waddan uu gaal isticmaarsanayeyna sagaashameeyadii baa noogu dambaysay qof surwaal gaaban qaata waxaan ka wadaa nicmadda inaku aan haysana maanta saxwada diiniga cilmiga dacawiga masaajidda iyo bii'adda diiniga ee mujtamaceenna luqadeenna ku hadlaya ilaahay siiyey war waa nicmo ilaahayna siiye ilahay aan ugu mahadino lain shakartum laaziidannakum shukriguna waa maxay xamdi maaha shukrigu waa shukru ljawaarix bilxamdi taduumu nicam wa bishukri tazaadu nicam xamdigu waa ka carabka weeyaan shukriguna waa ka camalka weeyaan salaatu leylku nebigu u kacay rakacad keliyuu ku tukaday 5 juziye badh ilaa lugihii barreen caaisha ku tidhi lima tasnacu hada waqad gafara allahu laka ma taqadama min dembika wama taأkhar muxuu ku jawaabay afalaa uxibu an akuuna cabdan hada huwa shukr marka nicmadda ilaahayna siiyey inaan ku shukrino oo masaajideenna tacliinteenna dacwadeenna khayrka aan ka wada shaqayna soo diyaar ma nihin insha allah dhahada waan soo ziyaaranay saad noo soo dhaweyseen ardaydiina culimadiina quraadiina allah inii soo dhaweeyey ninkana annaguna jabuuti baan nagu soo dhaweynaa noo kaalaya insha allah ya reer nairobi reer isli ma socotaan maxay nagu dhacay waxu baad dhisaysaan aqla dhaadheere insha allah khayrkana waan biirinaynaa soo diyaar ma nihin dembigeenna allah ha dhaafo dembiga waalidiinteenna allah ha dhaafo diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allah ha shaafiyo mowtaadkeenna allah u naxariisto muslimiinta meelay joogaan kurbada iyo cidhiidhiga allah ka qaado muwaafaqay midnimana muslimiinta meelay joogaan allah ha siiyo اسمها ذكر الله إن هديه صلى الله على نبينا محمد سامحوني مشايخ